gabadhu waxay gacanteeda saartay badhanka bareega wiishka. Mike oo ag taagnaa ayaa isla markiiba argagaxay. Wuxuu qabay cabsi daran oo meelaha cidhiidhiga ah, claustrophobia. Ka hor inta uusan joojin, gabadhu si go'aan leh ayay u riixday badhanka. Dhawaaqa klike ah oo xoogan kadib, wiishkii si kedis ah ayuu ugu istaagay dabaqa 49 aad. Waxay riixday badhanka joojinta. Waxay ahayd shil awoowe. Waan ka xumahay. Si ula kac ah ayay u samaysay. Way i eegaysay dabadeedna way riixday. Been baad sheegaysaa. Waan ku arkay. Been low. Ilmo shar leh. Markii Mike uu ku habaaray gabadha, odaygii ag taagnaa ayaa amar ku bixiyey in la aamusiyo. Gabadhu waxay ahayd gabadhiisa uu awoowaha u yahay, odaygana wuxuu ahaa milkiilaha shirkadda. Dhammaan dadka ku xayirnaa wiishkana waxay ahaayeen shaqaalihiisa. Kadibna wuxuu riixay badhanka wicitaanka degdega ah ee wiishka, isagoo been ku sheegay in qof si kama ah u riixay bareega, wuxuuna ka codsaday in si degdeg ah loo soo diro qof dayactir ah. Si lama filaan ah, shaqaalihii ayaa ku jawaabay, bareega wiishku wuxuu ka hortagaa inuu si lama filaan ah hoos ugu dhaco. Haddii lagu farageliyo, cillad ayuu sababi karaa. Waa inaan sugnaa dabdemiska si ay noo soo badbaadiyaan. Odaygii wuxuu raaligelin ka bixiyey gabadhiisa awgeed dhammaan dadka. Intii ay sugayeen gargaar, Mike wuxuu sii noqonayay mid aad u xanaaq badan oo walwal ku sii kordhaya.